kusoo dhawaada cashirkeeni kow iyo tobnaad ee MS Excel. Cashirkan wuxuu ku saabsan yahay Excel charts. Saddexda ugu caansan ee la isticmaalo waa saddexdan: pair chart, column, and line chart. Chartka wuxuu ka caawinayaa in daatada ay noqoto daato markaasi si fiican loo fahmi karo. Soo aragno qaabka loo isticmaalo. Hadda halkaan nambarana ugu diyaarsan waan dooranaynaa. Markaan doorano then waxaan ku dhufanaynaa insert. Kadib halkaan saa u jeedid recommended chart ayuu leeyahay. Soo kale noocyo kala badan ayaa halkaan markaasi aad ka heli kartaa. Haddii recommended aan ku dhufano marka recommended wuxuu ku siin doonaa qaybo kala duwan oo chart ah ayuu ku siin doonaa. Kan haddii aad furtid waxaa heli doontaa column chart. Midkan haddii aad furtid waxaa heli doontaa hierarchy chart. Kanna sidoo kale nooca kale asagana insert waterfall. noocyo badan uu leeyahay. Marka nooca haddii markaas aad dhahdo adoo u baahan tahay ayaa isticmaali kartaa. Kanna soo pair chart waaye. Kanna line waaye saa u jeedid. Kana soo qaatay hadda wuxuu ku sawiraa line ayuu ku sawiraa. Soo numberka fiiri number 1 ilaa iyo waxa inoo qoran number 10. Ushaan ama line kan kor u socda saa u jeedo. Soo chartka noocyadaas oo daatada ka dhiga oo daatada hadda si fiican ayaa loo fahmaa. 1 2 3 sida ay u kala sareeyaan. Qaabkaas markaasi ayaad ku soo bandhigi kartaa information-kaada ama daatada aad diyaariso. Okay, waxaan isla arkaynaa nooc kale. aan dooran daatada halkan noogu diyaarsan. Then aan ku dhufano insert. Kadib aan imaano. Hadda waxaan isticmaali doonaa qaybtan column-ka isticmaali doonaa. Then click si kadib midka rabid ayaa dooran kartaa. Soo sida u jeedid daatadaadii oo marka hore qoraalkaas ahayd qaabkana lagu soo bandhigi karaa. Oo mid kastaba qaybtiisa ayaa la siin doonaa. taasna tusaale kale waaye oo markaasi qaabka aad u isticmaali karto chart si marka aad u soo bandhigto xogtaada ama daatada ku diyaarsan. Okay, noocyada kale aan fiirino oo asagana chart kale ka mid ah. Markaas insert tigaysa. Then qaybtan haddii aad fiirisid soo jeedid qaybtan hata waa isticmaali kartaa. Waxay ku tusaysaa qaybihii kala duwanaa ee daatada haysatay ayaa halka markaasi marka ay ku tusaysaa oo ku siinaysaa. Okay, mid kale aan fiirinaynaa. dhammaantood inaan aragnaa rabnaa markaas ay soo muuqanayaan. Kan waa aragnay waa column-ka noocan ah sidoo kale waan fiirinay. Okay, qaybtan xigto oo waterfall-kan asagana sidaan waaye. Soo jeedid qaabkan uu shaqeeyo ama qaabkan ayuu soo muuqanayaa. Noocyo kala duwan marka haddii aad bedelaysid style-ka halkaan ka bedeli doontaa. Halkaan inta furtid then nooca rabtid ayaad ka dhigaysaa soo jeedid. qaybteeda dooran kartaa marka mid haddii adiga kula muuqdo. Halkaan haddii aad furtidna waxaa heli doontaa in markaasi title-ka iyo ciwaanka qaabka uu soo waxyaalaha dhan inta halkaan ka bedeli kartaa waxaad u baahan tahay. Chart title hadda markaan tig saaro ciwaanka uu kusoo laaban haddaan qaadana magacii meesha lama arki doono. Soo waxyaalaha hadda bedelaysid sidoo kale MS Word waan kusoo qaadanay chartkan. Marka haddaa u baahan tahay asigoo si fiican u faahfaahsan casharadaas MS Word ka soo daawan kartaa. Sidoo kale waxaa jira qaybtan oo pair chart-kan. Pair chart-kan aad loo isticmaalaa. Soo jeedid wuxuu ku tusayaa qaybaha kala duwan ee markaasi halkaan magacyada ku diyaarsan. Soo jeedid HP iyo attack iyo defense kulli asana uu ku soo bandhigayaa. Noocyo kala duwan uu leeyahay oo halkaan aad heli kartaa oo markaasi aad dooran kartid markaa. Okay, aragno qaybta noo xigto qaybahan sidoo kale qaybahan ayana noocan ay ku soo saarayaan. Kadib halkaan markaasi style-kii wax doonto ayaad ka bedeli kartaa. Okay, recommended-kana laakiin markaas la iska isticmaala oo marka asaga mid ku habboon asaga ku soo qabanayo kadib waa ka dooranaysaa. Soo hadda waxaan aragnay qaabka loo soo geliyo chart-ka marka u baahan tahay koow inaad doorataa then isaga ku dhufanaysaa kadib ayagoo kala markaasi noocyo badan ah halkaan ka heli kartaa kadibna waa isticmaali kartaa. Marka muhiimadeedu waxaa waaye in marka daatadaada si fiican loo soo bandhigo oo markaasi la fahmi karo oo markaasi aad u fiican loo soo bandhigo. Soo cashirkan halkaas noogu joogayaa haddii nagu cusub soo biir. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.